kulan uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Awdal iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Awdal oo ay iskugu yimaadeen salaadiin cuqaal culimaadudiinka iyo ganacsatada gobolka Awdal ayaa si qoto dheer looga hadlay amniga iyo horumarka gobolka Awdal. Kulankan oo ka qabsoomay hotel Rays ee magaalada Boorama ayaa waxa goobjoog ka ahaa saraakiisha ciidamada qaranka ee gobolka Awdal ayaa waxa uu horreyn hadalka iska daba qaatay salaadiin cuqaal culimaadudiin iyo ganacsato waxayna bulshada Boorama uga digeen wax kasta oo lid ku ah amniga gobolka Awdal waxaana hadaladoodii kamid ah nabadaan ku dadaalo nabadaan haysano waxa weeyaan ma hayno war ma garanaysaa waxbaadan ma hayno laakiin uga shikinay inuu mudaharaad fool xun la soo hoosgeliyo war naga daaya nabadeena aan ilaashano waa danteennii waa nabadgelyadeennii waa iskaashigeennii waa wadajirkeennii haddii aan leenahay iyo aanan waxa berri dhallinyarada iyo Boorama ku ballantay haddana mudaharaada waxyeello uu inoo keeno mooyaane waxtar halkaa kama laha waxtarka aan sugno wadajirka aan sugno wax bislaashaha aan sugno adagu haddaan nahay dhaqan iyo culimo iyo ganacsataba ma ogolin nabadgelyo darro hala doodayo wixii tala haddii la kala dambayn waayo oo la ismaqli waayo oo ay carruurtiiyo dumarku hor yaacaan taladii reerka ma suuroobayso waxaan leeyahay dadka gobolka Awdal ku nool war shalay wax xaaraanad ku dhaqaaqdeen rag iyo dumar dee halkan xasan sheekh maxamuud ma xukumo ee Muuse Biixi baa xukumo madaxweyne ka waxaan leeyahay ninka dambe ee soo baxaada duqaydiinahay waxaan leenahay dawladdu tallaabo ka qaado ardayda iyo dhalinyarada aabayaashiin baan nahay aabayaashiin haddaan nahayna laakiin rabshadaad ku dartaa xaq uma lihidina ciddii rabshadaa ku dhimata iyo ciddii wax ku noqota aabba kama noqonayno kamana doonayno dawladda maanta alxamdulilaahi baan joognaa nicmad baan ku jirnaa haddaan waxa ilaahay ku siiya anad alxamdulillah oo ilaahay uu ka qaadi la in shakartum la aziidannakum yaynaan iska rogine wixii aan doonayno si aqli ah oo yani qofku uu eegayo maxaa waxa doonayso oo qofku aad uga fikirayo wuxuu haystana uu arkayo ilaalinteedana uu ku fikirayo ayaa wax lagu raadiyaa marka waxaan leenahay cabsida jirta ee la leeyahay waxa weeye danayn la isku soo baxa laga baqayaa hal la joojiyo waxaan ku baaqaynaa anoo ku hadlaya magaca culimada aniga Sheekh Cali laga soo xuleeyay magaca culimada ku hadalo haddaan culimadiina nahay waxaan ku baaqaynaa bari mudaharaadka dhacaya ila sheegay in la joojiyo inuu dhicin maxaa yeelay waxa laga yaabaa dhibaato ka dhalato walaalayaal balaayadu wax fiican maaha balaayadu markay bilaabmaysana way qurux badan tahay marka hore xamaasad bay leedahay boodbood bay leedahay hadhowna way xumaataa marka walaalayaal waxaan ku baaqaynaa mudaharaadka bari lagu baaqayo in la joojiyo haddaanu nahay ganacsatadiinnii odayadiinnii musheekhdiinnii halkaa waxaanu ka caddaynaynaa inay wax dambe ooy ku tashadaan oo mudaharaada oo ay qabtaan ayna dib u dhacayn dawladdana waxaanu leedahay ka guta hawlihiinna amni nabadgelyada idinkaa u xil saaran nabadgelyadu annagu waxaa nahay hilib bisil haddaan ganacsato nahay oo ninkii nabadgelyo darrada maxay garanaysaa sameeyba uu qaadanayo war markaa hilibkeega bisil badbaadiyaan leeyahay dawladda sidoo kale gabagabadii ayaa waxaa hadalka soo afmeeray gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Xasan Daahir Xaddi ayaa bulshada ku booriyay inay ka qayb qaataan horumarka gobolka ka socda isla markaana ay ka fogaadaan wax kasta oo lid ku ah amniga gobolka aad baad u samirteen raalli ahaada danaan wada leenahay un baan ka wada hadlaynay oon isugu kin yeedhnay haddaan nahay guddidii nabadgelyada gobolka inaan u hogaaminay ka gudoomiye ahaan ajiibka aad soo ajiibteenna inaan nabadgelyadeenna gobolka ka wada hadallo wixii dhacayna awna dib inoogu soo noqonna aad baad ugu mahadsantihiin
nin waliba uu ka hadlay nin waliba sidaa u arkaa waxay noqotay in nabadgelyadu ay tahay waxa ugu horeeya ee dadku ku noolaado dhinac baanan uga soo wada jeesanay ka xukuumad ahaan xukuumadda gobolka Soomaaliland iyo dhaqankii iyo culimadii iyo ganacsatadiiba waa inta ay ka go'aanku gobolku nabadgelyada inay ilaaliyaan nabadgelyada aan ku naaloonayno ee ubadku ku koray inta ku soo jirnay iskuulada lagu dhigtay jaamacadaha kaga baxnay ummadda kala dheernahay inay dhaawac soo gaadho waxa weeyaan inaan ka wada tashano xaq baynu isugu leenahay ku soo gabagabeynaya goor gaaban hadalkeed gaaban heshiisyada caalamiga dawlad baynu u dooranay dawladdaasaan u daba fadhiyaynaa wixii wax qabadana inagu aan doonaynana albaabka madaxweyne iyo albaabka barasaabka wakiilka gobolka ugu intuba way nii furan yihiin waxaan anagu imika sida uu ganacsada Shiinaba sheegay gacanta ku haynaa airportkii gobolka waa gabagabo ganacsatada waxaan ka codsanaynaa war wixii contribution ee ballan qaadeen walaalahayo wali waa niga sugaynaa martiqaad baanan niigu fidinaynaa inaad xasuusino maalin dhow inaad lacagtii soo bixisaan waa qaybtii aan inagu qaybinay dadka walaalaha ee dibadda jooga ee dhaqaalaha ku soo kaba dadkana waxaan leenahay war horumarka laga soo qayb galo wadada Djibouti ilaa iyo Boorama imanaysi nabadgelyo u baahan tahay nabadgelyo hadaan ahayna wax walba waan helaynaa sida sheeyna sheegay waftigii uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenku ee madaxweynuhu soo diray halkan raay ururintii iyo go'aankii ay la noqdeen wasiiradii garbihiisa ahaa iyo ka gobol ahaanba wuxuu madaxweynuhu codsigii ay u geeyeen ku ogolaaday in tikada lagu hayo la dhiso oo contributionka dawladuna ay ka qayb qaadato berito hadday meel kale u weexatay inaan ka calaacalin war horumarka loo soo joogsado heshiisyadana dawlad baa loo deertay madaxweynaha qaranku waa president elected isaga heshiisyada caalamiga ah dalka uga masuula wixii dawladdu keentana waa horumar ee dib ma keento xamastana ha loo sheego inay horumar soo socdo ina ummaddu nabad tahay nabadgelyadana horumarku ku yimaado dhibaato waxba ma keento aad iyo aad baad u mahadsantihiin maxamed bilibili TV-ga qaranka Boorama